dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa sida fiinta uga qayliyay 22 qof ee laga soo doorto gobolka Togdheer hormuudooyinkii ugu dambeeyay barroobabka guga ama barroobabka mahigaanka ahi ay si ballaaran uga daayeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxayna guud ahaanba dadweynahani oo u badnaa dadweynaha danyarta ay ku dhaliileen golaha deegaanka in guud ahaanba aysan jirin wax hawl ah oo ay u fidiyaan isla markaasina hawshoodu ay noqotay isku mashquulsanaan mudooyinkii ugu dambeeyay ay dabada u soo baxaysay hayshashada xildhibaanada golaha deegaanka Burco si kastaba xaalku ha ahaadee dadweynuhu waxa ay ku dhaliilayaan eedda ugu badan saarayaan Maayir Maxamed Yuusuf Muraad oo sida ay sheegeen guud ahaanba ku fashilmay ilaalinta iyo waliba daryeelista dadweynaha Burco wasida ay hadalka u dhigeen waxa ay sheegeen inuu noqday mid keligii ku mashquulsan ibsashada hantida dawladda iyo waliba ilaalinta kursigiisa oo sida ay sheegeen uu ku fangareeyay lacag farabadani waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha la hadlay hawlwadeenada warbaahinta Burco ka hawlgal wax qabad la'aan oo baaqayagu ku wajahan yahay dawladda hoose dawladda saraan madaxweynaha aanu la hadlayno madaxweyne gobolkaad u dhalatay waa sida ay si ka daran laamiyadeedii guryaheedii maatadeedii meel wala ay joogtaba waxa way taafaa haysta waxa way roobeena wada laayay waxa way suuliyadii buu naga gooyay wuxuu naga gooyay maxay ay tahay guriyii wuxuu naga gooyay meel walba uu naga gooyay banaan baanu taaganahay cid meel ma seexano ma fadhiisano waxaanu taaganahay banaan cidla ah waxaanu doonaynaa agoonihii baanu nahay waxaan ahay anigu gabadha Aslam kow lambar 1 Burco xiraysay baan ahay waxaan ahay agoontii cilmi faqash baan ahay hadii aanu nahay agoomihii wadanka hadaanu u dhalanay hadaanu nahay kuwii wadanka xoreeyay hadaanu nahay calanka cas kana kuwa lagu cisaynayo guriga yaga wuu dumay waxa weeyaan wuu dumay guriga yagi waxa weeyaan daadku wuu nagalay banaan cilaaban caruurta la fadhiya waxaan doonayaa Soomaaliland hadii aanu nahay in degdeg waxna loo ku qabto xaafadda Sheekh Bashiir Cakaara waa aragtaa waxa biyo halka waran waa aragtaa waxa daryeel xumo iyo qudun iyo biyo halka yaala waa aragtaa dadka xaafadda xalayto iyo intii roobku daayay ama ka horeysa ama xalayba haatee wax guryaha ay u hoydaan ma jirto daadana waa tago guryaha suuliyaashu waa ka dumay guryaha waa ka dumay biyuhu meel ay u baxaan male way xidhan tahay wadada ka timaada hawlaha guud halka riigabqaya kaga talowda dawladii hoose aanu dooranay sida aanu u dooranay kawsakiin u yimaado maando arag loo soo doortay baa leeyahay wax loo soo doortayna ma jirto maayir kalma kala keena waa mid ka ugu baalisan maayirada wadanka jooga waa ka ugu xun ku daafada magaalada inta la waxa biyo fadhiya waxa ku daafad fadda laga sheekeeyaan marka waxa soo maayir lagu sheego shan jeer baan ugu tagnay dawladii hoose aan wada kaalaya dadkii doortay kaalaya baleeg wadada dixda naga rido oo biyo bad yar hoose u sameeyo jeexan xaqna saru soo yeedhisay iska rugaynkiina waa cagaftiina waa haysana wallahi ka waxa warkasan xanaanadii dhexe oo ay biyihii fadhiyaan oo aan biyahan meel lagu dhaqaaqin isla markaana marka 3 cisho ama 2 cisho ku jireen keenayo aan dadku jeclaysanay markaa dadweynaha xaafadda ku nool Sheekh Bashiir gaar ahaan xaafadda loo yaqaan inay jibin wadada dheer ee hormarta ilaa awlaha ku soo baxda ee ilaa buqlaya ku darta waxaan ku doonayaa wixii Allah wixii xaafadda u dhigaa haday daara tahay haday tahay sadaqado haday wada tahay wixii ay biyo fadhiyaan ilaa xalayaan dadka halkan tuuray aanay seexan oo ay soo jeedaan biyuhu u burayeen waayo taana waxa ka tahay wadada ka soo baxda guriga afkiisa ilaa awlaha guud ee ku darta xagga dooxa buqleeye tiina markay buuxsantay ee meel alaala meel ay ka baxdo weyday waxay sababtay inay xaafadii u gasho jeerna waa qabanay 10 jeer waa tagnay waxbana looma qaban dadkaba kuma tirsanin waxa la waxaanu nahayba garamayno waxa la waxaanu nahayba kawde dawladna wala sheegaya waa nala waxayna maana alla maanta la ilaa waxba la waxayna soo kacana la ilaa soo kaca maalinta kalena nala lama hadlo intii caawana soo naga soo gaaray irka dambe muxuu reebaya qodha iyo xirada xildhibaanadan iyo shaqadoodii gabay ee shaqadoodii garan waayay waxaan ugu baaqayaa inay iska hagaajiyaan wadooyinka ay suuqa dhaxisa iska hagaajiyaan oo biyahan wadada ka sii daayaan oo shaydiga meesha waxa weeye dawladii hoose wax qabadkeeda caynkaas u noqday in meel walba dawladii xafiisyada dawladdu ay buuxsamaan wax qabadkeeda caynkaas u noqday wax la wax qabanayaan ma jiraan xilka iskaga degin maayirka waxaan u dirayaa wax qabadkiisa ha muujiyo
dhulkii dawladda iyo dhulkii dawladda oo dhanna waa la wada iibiyey maayarka iibiyey baa la leeyahay yaa dhulkaanu istaagna wax la maayarka iibiyey dhulkii dawladda oo dhan lacagtana alaala xisaabtama maayarka degmada alaala xisaabtama yaa Kariya Cabdiraxmaan Ibraahim warbaahinta madaxa banaana Hargeysa Price gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka